inuu noqdo maanta liqaageenu mowduucan ku saabsiisan mas-uuliyadda qofka muslimka diintiisa ka saaran. waxaynu wada ogsoonnahay basharka ilaahay abuurtay subxaanahu wa tacaala waxaa loo soo diray risaaladii ugu dambeysay oo loogu soo dhiibay nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wassalaam si dalaalka ama baadida ay ku sugan yihiin looga saaro. ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa wuxuu u soo diray inuu rasuul yahay, aakhirul ambiyaana uu yahay, waa nebi ka dambeeyaa jirin, ilaa yowmi alqiyaamana risaaladiisu ay noqonayso ta jiraysa. isagoo nebi moxamed maka jooga calayhi salaatu wassalaam oo aan xoolo wadan, oo aan askar wadan, oo aan dhaqaalo haysan, aan dowladnimo haysan, oo keliya ayaa ilaahay qur-aan ku soo dejiyey uu ku leeyahay qul yaa ayuha annaas innii rasuulullaahi ilaykum jamiica. dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay leeyay nebi maxamedow, innii rasuulullaahi ilaykum jamiica. caalamka waxa ku nooloo dhanow rasuulkii ilaahay idiin soo diray baan ahay. wax gacantiisa ku jiraana ma jiraan. magaalada maka la yidhaahda ayuu joogaa, dhaqaale ma wato, dowladnimo ma wato, askar ma wato, malaa'ig dadka usoo qabqabanaysaa lama socoto, miidiyahanaynu maanta haysaniyo waxaanay agtiisa ma yaaliin. haddana rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu nebi maxamed ku leeyahy calayhi salaatu wassalaam, qul dadka ku dheh yaa ayuha annaasu innii rasuulullaahi ilaykum jamiica. wardadow ilaahay rasuulkiisii baan ahay dhammaantiin. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. kumanan soo dirin baa ilaahay yidhi inaanu dunida dhammaanteed kuugu naxariisanayno mooyaane. tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira. waxaa wax barakeeya ama waxa weyn allaha subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyey furqaan addoonkiisii nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam liyakuuna lilcaalamiina nadiira. caalamkao dhan inuu noqdo. wa uxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balag. waxaad tidhahdaa baa layidhi qur-aankan baa laysoo waxyooday si aan ugu digo idinka iyo cidda kale uu gaadhaba. nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaa macruufa inuu wakhti yar noolaa. waxaa macruufa risaaladaasi inuu xambaarsanaa 23 sano oo isagoo dhowr iyo 60 jira dhintay. haddana qur-aanku wuxuu leeyahy dunidoo dhan adaa laguu diray. yaa qaadaya markaa risaaladatan? nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam isagu intuu noolaa wuu dadaalay ilaa rabbi uuga markhaati kacay oo la leeyahay falacallaka baaqicun nafsaka calaa aathaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa. ilaa rabbi uu ka leeyahay subxaanahu wa tacaala, nebi maxamedow waxaad ku dhadhowdahay inaad naftaada halaagto dadku markay ku rumayn waayaan. yacni dadaalka uu bixinayo iyo sida uu dadka hidaayada ula jeceliyay. laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan, yaa qaadaya? nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam saxaabadiisa markuu la hadlayay waxa uu u tilmaamayey, waar ma idin soo gaadhsiiyey buu lahaa. alaa hal ballaqtukum? waar ma idin soo gaadhsiiyey? markaasay ugu jawaabayeen oo ay lahaayeen haa, waadna soo gaadhsiisay. nebigu calayhi salaatu wassalaam isagoo la hadlayabuu wuxuu lahaa carafa isagoo taagan, allaahuma hal ballaqtu allaahuma fashhad. ilaahayo waan gaadhsiiye markhaati ka ahow. anugu kuwan baan raray oo faray inay risaalada xambaaraan oo dunida inta kale gaadhsiiyaan. anigu ilaahayo waan gaadhsiiyey, taasiyo markhaati ka ahow baa la leeyahy subxaana wa tacaala. saxaabada markuu weydiiyey ma idin gaadhsiiyeyna haa bay lahaayeen. xajatulwidaac markuu carafo sidan ka lahaa, masjidu khiif markuu joogayna nebigu wuxuu lahaa ruba muballaqin aw caamin saamic. waxaa la arkaa mid la gaadhsiiyey inuu ka weelayn bato midii dhegaystay. yacni wuxuu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wassalaam in ay muhim tahay dadkii isaga la socday inay qaadaan risaaladatan oo dadka kale gaadhsiiyaan. bale nebigu wuxuu ka gaadhsiiyey calayhi salaatu wassalaam xad uu u tilmaamo. maalan
khaybar, ghaswatu khaybar, dagaalku nebigu yuhuudda la galay ee meesha khaybar la yidhaahdo ay ku darireen. khaybar waxaa ku yaalay qalcado ay nimanka yuhuudeed leeyihiin, dabeetana waxaa adkaaday in la furto. xusuuntaasi dhib bay ku noqotay in la furto. markii maalmo la wada uu dagaalkii guulaysan waayey buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, subaxii dambe waxaan u dhiibayaa raayada mid ilaah iyo rasuulkiisuba jecel yihin. nebigu calayhi salaatu wasalaam raayat aljihaad wuxuu u dhiibay caliy bna abi aalib radia allahu canhu. cali markuu nebigu la dardaarmayey nin ciidan wata oo hogaamiye ciidana biluqati alcasri, yacni janan ciidan wata, maxaad filaysaa inuu noqdo dardaaranka la siin lahaa? yacni maskaxda bini aadamka caadigii waxay ka fakeraysaa dardaaranka la siinayaa inuu noqdo uun sidii uu wax u jabin lahaa ama uu guulaysan lahaa ama dagaalkan uu xoog badan lahaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi isagoo cali la dardaarmaya, lan yahdiya allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam. xadiidka saxiixu muslimka ku yaalla wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qof qura in ilaahay gacantaada ku soo hanuuniyo ma aha inaad boqolaal askari ka disho ama meesha furato lagama hadlayo. waxaa laga hadlayaa mishanka iyo sababta loo dagaalamayaaba inay tahay in risaale la faafiyo, inaan qofka muslimkii marnaba ilaabin hadafka uu u socday ugu weyn oo ah inuu risaalada tan xambaaro oo message xagga alle ka yimi subxaanahu wa tacaala ee loogu talagalay bini aadamka dunida ku nool oo dhan inay mushkilaadkooda xallisho. dunida dhib baa ka taagan, dhib dagaal baa ka taagan, dhib dhaqaale ka taagan, dhib siyaasadeed baa ka taagan, dhib bulsheed baa ka taagan. dunidu mashaakil bay ciirciiraysaa. mashaakilkan xalkiisina ilaahay baa samada ka soo diray. mushkilada dunidu la ciirciirayso rabbaa cirka wuxuu uga soo diray wixii lagu xalili lahaa. nabiyullaahi muxamedna waa loo soo dhibay calayhi salaatu wasalaam. dabeetana nebi muxamedna saxaaba uu sii dhiibay. saxaabadiisiina wuxuu kula dardaarmayaa lan yahdiya allahu bika rajulan waaxida, in ilaahay qof qura kuu soo hanuuniyo oo gacantaada uu ku islaamo ayaa kaaga khayr badan buu nebigu leeyahy geela cascas. min xumri nacam jamcu xamraa, geela kiisa cascas. carab markaasi maalka valuega ugu qaalisan lihi wuxuu ahaa geelaasi, noloshooda ay ku salaysnayd. geel cascas inaad heshaan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaa ka muhiimsan. walidaalika baa xataa dagaalada islaamiga markay gaalo iyo muslimiin isdilaysay waxaa awalan la lahaa dadka waxaad dooran siisaan islaamnimada marka hore u sheega. nabiyullaahi muxamed xadiidka bukhaari ku yaala wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, bucistu ila annaasi kaafa, dadka dhammaantood baa la ii soo diray. nebi maxamedna waxaynu ognahay maka iyo madiina iyo hareeraheeda inaanu dhaafin. isagoo aan intaa dhaafin baa waxaa loo soo diray dunida dhammaanteed. dunida dhammaanteed waxaa loogu soo diray waxa weeyaan kuwa rumeeya. shaqada koowaadee laga rabaa inay tahay inay diintan xambaaraan oo dadka intooda kala gaadhsiiyaan. saxaabadii nebigu way xambaartay, waxay gaadhsiiyeen umamkii kale, taabiciintu way xambaareen, waa sii wadeen. lacalla maanta inta caalamulislaamiga lagu tilmaamo intiisa ugu badani waa intay saxaabadu diinta geysay iyo taabiciintii la socday. waxaa muhimkii markaa wuxuu yahay oo isweydiin mudan, futuuxaadkii islaamiga ama dhulkii badnaa ee ciidamada muslimiintii furteen waxaa ka muhiimsanaa ciidamadii culammada ahaa ee hoos socday ee diinta faafiyey. waddan waad furan kartaa, laakiin afkiisa iyo diintiisa askari ma bedelo. dunidan muslimkaa waxaa diintooda bedelee gaadhsiiyey waxay ahaayeen jaxaafil min alculamaa, dad culamo oo tiro badan oo saxaabo ah oo taabiciin ah ayaa dadka kan diinta soo gaadhsiiyey. maanta se masaladaasi waxaad moodaa qofka muslimka ahi inuu dareenkaasi ka lumay. maanta dunida bilyan iyo badh muslima ka badan baa dul saaran. afartii qofe kastee muslimee dunida, afartii qofe kastee bini aadamee dunida dul jooga halbaa muslima baa la leeyahy. haddaynu dareenkan qabnaa inaynu diinta xambaarro
qof iyo saddex xun baa baynagu soo hagaagi lahaa dunida gebageedaba waliba inuu saddex islaamiyo dan aakara laguma rideen wax kalena laguma rideene sideeday muslim u noqon lahay haddii dareenku uu galo ummadda muslimka ah oo ah inay xambaaraan diinta tan oo ah wuxuu nebi moxamed baray calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii oo inay qaadaan oo diinta ummadda gaadhsiiyaan haddii dareenkaasi uu jiro waxay isweydiinta leh innagu inta imisaynu muslim ahayn saxaabadiisa diinta faafisay imisay muslim ahayd nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadu markay u yimaadaan الدكتور عبد الوهاب الطريري baa wuxuu tilmaamayaa العمل للدين قرين الانتماء إليه buu ahaa buu leeyahy diinta in loo shaqeeyo oo mas-uuliyaddaasi la dareemaa waxa ay ku xidhnayd inuu qofku islaamo uun yacni mujarad uu qofku yidhaahdo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah ayuu wuxuu fahmayey inay fuushay xil ah inuu diinta tan xambaaro dadka kala gaadhsiiyo wuxuu fahmayey inuu nebi moxamed wakiil ka yahay calayhi salaatu wasalaam ama uu safiir ka yahay wuxuu fahmayey xilkaasi intuu qaado inuu bashariyada inteeda kale u gudbiyo basharku inta badan tusaalayaashu wax ku fahmaan tusaalayaal kooban bixiyo magaalada maka waxaa ku talagalay inuu iska soo cimraysto casriiljaahiliya waa la cimraysan jiray waayo xajka iyo cimrada iyo waa diintii nebi ibraahim ka tegey nin la yidhahdo tufayl ibnu camr iddawsi طفيل بن عمر قبيلة الدوس اللي يرادو كردشاي ويمني حق دقي جيري طفيل بن عمر روحها نين قبياء وحكيمة وأضيوء تلكي مكا مركو كسو سعودي أيا دعاية دي بضنيدة مكا كسو بحيسي أيا راديسي غير مكي دعاية إعلان عالمي يبي بحيان مقالة إني والا نتشوغو أما وشوغو مقالة nin wax sixra oo afka hadduu kula gaadho adiga iyo reerkaaga waa kala tegaysaa dabeetana waxaan sidhi buu yidhi ninkaa warkiisa haba dhegaysanine dhagaaba ka sii furayso cod buu goosto labada dhagood buu sii furaystay iyadoo dhaguhii furaysay imaan soo galay buu leeyahay magaalada maka kadibna waxaan sidhi buu yidhi war nin weyn oo caqli loo garaad labaa tahaye waxa san iyo waxa xunna waad kala garanaysaaye maad furta iska saartid oo hadduu ninkani wax wanaagsan sheegana waad arki wax xun hadduu sheegana waad arkaya فرتان سكبحي بيد دبتنا النبي قوي عليه الصلاة والسلام نبي قو دينتو صابر نجا هو إسلام طفيل بن عمر مركو إسلامي وحلا إلهي رسول كيسيو هذا ما يدر هذا هدو إسلام لكن وحد درامي إن سنة مسؤولية دي فوشي هذا ويا هاي شقادة إنه قيبتي سقفته علمي انتو دكتي دمانتي يا شلي يقول لك انت مبو تشوغي لكن وحد درينسان يهي مبدأ أنينو ياي مبدأ لوغو تلقالي دوني دوردان دينتا تاني wuxuu dareensan yahay inuu isna xilka xambaaro oo dadkii ka dambeeyay u gaarsiiyo tolkiibu dib ugu noqday dabeetana diintiibu isna u soo bandhigay waa laga dhageysan waayay uu ku waday waa laga akhrisan waayay markii laga akhrisan waayay isma oranin war kuwani waa duul habaar qabayaal adaba dantaada iska raacday adigu u sheegtay iyaga diiday ee wali wuxuu tijaabinayaa mas'uuliyad inay saaran tahay dabeetana nabi maxamed uu ku soo noqday calayhi salaatu wassalaam markuu yimi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow daws way diideen ee waxaan kaa codsanayaa kaa baryayaa inaad habaarto ilaahay aad weydiisan nimankaa reer daws inuu inkaar ku rido balaayo ku dhacdo nabigu calayhi salaatu wasalaam gacmuhu taagay markaa innagu waxaynu kobacnay xilli ducada ugu badan aynu maqalay tahay ilaahay uu yahuudiya kristanka iyo gaalada halaag laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu gacmaha taagay wuxuu ka bilaabay allaahumma hdi dawsan xadiidka bukhaari ku yaala ilaahay ow reer daws soo hanuuni maalina ma tidhaahdeen ilaahay ingiriiskan hanuuni qof muslima ku ducaysay miyaa leedii ilaahu kuwan diinta ku dar qof yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha cirka u taagay ayuu wuxuu leeyahay allaahumma hdi dawsan ilaahay ow reer daws diinta bar oo ay hanuunaan oo diintu qalbigooda gashaan طفيل بن عمر الدوسي دبو نقضي هدنا مركله أيو تجابيي إنه دتك الدين توغيره وقت يركد دبو صار نقضي
isagoo wada 78 raga oo ay ka mid yihiin muslimiinta aad taqaaniin kuwa ugu macruufsan. ninka inta yar nabi maxamed la joogay baa keenay, bale xadiidka ugu badan ninka uu inaga soo gaadhay Abu Hurayra sama wada taqaaniin. Soomaalidu waxay dhahaan kitaab Abu Hurayra laga waayay kitaab maaha. Abu Hurayra doos Tufayl ibn Amr ad-Dawsi baa keenay isagoo wada. dabeetana Abu Hurayra wuxuu ku takhasusay inuu nabi maxamed 3 sanadood habeen iyo maalmo iska daba socdo, meel la aanu qabanin, uu galo dawraad mukaffafa intensive courses oo 3 years 3 sanadood, waanu meel la uga bixin habeen iyo maalinba inuu wax barto oo xifdiyo diinta tan. 5 xadiis wax ka dhow ama ka badan bay naga soo gaadhay. yani waxaan leenahay mas'uuliyadu dareemay Tufayl ibn Amr ad-Dawsi waxay keentay inay ku asaxdo xadiidkii nabiga maxay ahaa rubba muballighin aw aamin saami'. waxa la arkaa buu nabigu yiri mid la gaarsiiyay inuu ka weelayn badan yahay kii dhageystay. Tufayl iyo Abu Hurayra yaa soo horeeyay. Tufayl ma ku islaama, Abu Hurayrana ma wuxuu islaamay ghazwatu Khaybar markii lagu sii socday sanadkii 7 ee hijriyada meelahaasi. haddana imisa maqasheen Tufayl ibn Amr xadiisi wariyay, imisa Abu Hurayra maqashay xadiisi wariyay. yani waa qof dareemay inuu mas'uuliyad xambaaro. waxaan leenahay ummadii muslimiinta ee nabiga la noolay alayhi salaatu wasalaam, مثلا أبو ذر الغفاري صحابي قال له رنجري سيقول دين رادسو مكيمي واكا شاقانا ينو ربع الإسلام يهي إنه قفكي صدحا أفراد إسلامويي علماء الحديث لكن وحي لين ضد بدنا قرصونا كهرية باشرة. على كل حال وقت آن إسلامكم معروف هاي المكابو صاقلة سيقول دين رادين إياه. علي بن أبي طالب والله كل ما وأركين كان قريب كاي magaalada jooga markuu weydiiyayna wuu waramay qadiyadu siday marka xasaasiga oo ahayd. cali wuxuu ku yiri idabagal, dabeetana calaamad baan ku tusinayaa, haddaad calaamadaasi aragto waxa weeyaan albaabkii nabi maxamed meeshuu joogay calayhi salaatu wasalaam waa khatar, iska dhaaf. yani inaad nabi maxamed aragto la hadashaaba dambiya oo lagu dilaya. marka wuxuu leeyahay haddii uu jaanis meesha ka jirana calaamad baan ku tusin oo waad soo gali, haddii waanu meeshu ay miinaysan tahayna calaamad kale aan ku tusin oo wada dhaafi waad iska socon. laba nin aan wada socon oo kale aynu iska dhigaynaa. Abi Dhar sidii buu ku soo dabagalay, dabeetana calaamad baa la tusiyay inuu nabigu u tagi karo. nabi maxamed buu yimi calayhi salaatu wasalaam, diintu nabigu u soo bandhigay. markuu nabigu diinta u soo bandhigay ayuu nabigu wuxuu ku yidhi waad aragtaa xaaladaanu ku noolay siday tahay, ilxaq biqawmik fa idaa balagaka duhuuri faatini. tolkaa qaba buu ku yidhi maka waad aragtaa duruufta qofka ila kulma in la tumayo qof kala daayay. marka meeshii reerkiinu deganaa iska qabo oo nin reer bani Ghifaara, marka aad maqasho inaan guulaystay uunii kaalay buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Abu Dhar waa ka soo noqday nabiga, laakiin wuxuu dareemayaa in isla mas'uuliyadda saaran tahay. horta intaanad la gaadhin buu yidhi reer bani Ghifaar maad Quraysh kaga dhex dhawaaqday tawxiidka. intuu yimi naadigii Quraysheed ee Kacbada agtiisa ahayd ayuu dhagaa isqabtay isagoo tawxiidka ku dhawaaqaya. dabeetana Quraysh waaba yaabtay, war muxuu ahaa wiilkan yare naadigii Quraysheed waxaan kaga hadlayaa. gacanta loo qaado waa la tumay, iyadoo la tumaya waxa ku soo baxay Abbaas ibn Abdul Muttalib. dabeetana wuxuu yidhi war ninkan garaacaysaan ma garanaysaan? may baa la yidhi waa nin reer bani Ghifaara ee xagee safarkiinu maray buu yidhi. Quraysh baayac mushtar bay ahayd, tijaaradoodu wixii xagga waqooyi ka yimaada iyo Shaam iyo dhulkaasi oo dhan bay soo mari jireen. wixii Indiya iyo dhanka ka yimaada xaggan Yamaneed soo maraana waday soo mari jireen. rixlat ashitaa'i wa sayf, laba safaroo midna xagaaga yimaada midna winterka yimaada bay lahaayeen oo tijaarada keena. kan markaa Shaam qabtaa wadada ay maraan ayuu qabiilkani dagaa, bani Ghifaar la yiraahdaa. aqligi mantiqi ay fahmaysay Quraysh buu kula hadlaya, wuxuu leeyahay xagee dhaqaalihiinu soo u shaqayn doona dhaqaalihiinu haddii nin reer bani Ghifaar ah dishaan marinka la idin fadhiisane. gacanta laga qaaday markaa wala iskaga tagay. Abi Dhar la tumay isma oran iska tagay, wuxuu yiri war mala shaqadii si fiican wali uma gudan.
dhalinyaradu waxbay ka xamaas badan tahay waa nin dhalinyaro ah berina ku celi buu yidhi beritadiibuu ima uu ku celiyey markaasaa haddana la tumay cabaaskii baa haddana ilaahay kusoo saaray war ninkani waa ninkii reer banu ghafaar aad tumaysaan baa waa iskaga tageen wuxuu is yidhi weli ma ahee ku celi maalin saddexaad buu haddana ku celiyey haddana waa la tumay abidar wuu iska tegey akhiiran tolkii buu diintii intii uu soo dhegaystay buu tolkii ula tegey wuxuu nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo nus wada qabiilka gebigiisii baa nus isagoo wata haddana dib buu u noqday wuxuu la yimi isagoo qabiilka nuskii kale iyo qabiil kaloo ilmaadeeriyiinoo aslam la yidhaahdo wada waa ka xadiidkii bukhaari nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ghifaar ghafara allaahu laha reer bani ghifaar ilaahay dembigooda ha dhaafa buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wa aslam saalamaha allah reer aslamna allaha nabadgeliyo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku ducaynayay yani waxay ahaayeen mas-uuliyadda wuxuu dareemayay qofku inuu islaamo oo waa shahaato wuxuu dareemayay in xil diinta tan ka saarantay bal waxaa soo arooray inuu ragga badh nabigu calayhi salaatu wasalaam heshiis kula gelayay waa calaa qowmiki inuu lahaa imikuu islaamo nabiga heshiis la gelaya dabeetana tolkaana heshiiska u qaad buu nabigu lahaa waa kii dimaam alasdi wuxuu ahaa nin qoladan jinku dadka u galgaliya wax ku tuftufa dabeetana wuxuu maqlay nin waalan baa maka jooga ilaa dacaayadii way faaftay dacaayadda haddii media laga tira badiyo dee way faafaysaa xad baa la gaadhsiiyey dadkii carbeeda kale ay u fahmaan nebi maxamed inuu nin waalan yahay yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka la majnuun ta qur-aan ku soo arortay wuxuu yidhi magaaladan soo galay dabeetana waxaan idhi buu yidhi war bal ninkan waalan ay sheegaysaan ii tilmaama waxbaan tuftufaaye bale waan wax ku akhriye waa intaasaa u caafimaadaaye nebi maxamed buu la raadinayaa inuu wax ku tufo magaaladaanima buu yidhi dabeetana nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi maxamedo waxaan maqlay inaad xanuunsanayso aniguna dabaylaha waxbaan ku tufaa dee maxay kuula muuqataa inaan kugu tufo haddii adiga saa lagula dhaqmo maxaad samayn lahay inaad dagaalantaabay ku dhowaan lahay laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyad buu xambaarsanaa inuu dadka diinta gaadhsiiyo walidaalika buu wuxuu bilaabay in alxamda lilaahi naxmaduh wanastaciinuh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wuxuu bilaabay khudbat alxaaja taqaaniin uu dhegaystay dimaam alasdi dabeetana wuxuu yidhi aacidhaa calaya iigu celi mar kale markaasuu nebigu ku celiyey dabeetana wuxuu ku yidhi aacidhaa calaya mar kale ku celi markaasuu mar saddexaad ku celiyey laba waxba culammadu way tilmaamaan haddii nin waalani kula hadlo oo wax akhriyo aad tidhaahda ku celi maxaad ka filaysaa dee inuu haddana meel kale ka baxo soo maaha ila wani dawaqsanaya nin waalani hadduu war akhriyo daldalo aad tidhahda bal ku soo celi wixii aad tidhi uma badna inuu dee ku celin karo haddana tidhahda ku soo celi waa marka labaade warkan uu sheegay maaha war uu yaqaanayba ninka kani warkii kaahinka iyo shacarada iyo gabayga iyo waxa maaha waa war tawxiid iyo ilaahay mahadnaqiisa ka waramaya dabeetana wuu islaamay nebigu heshiis buu la galay bayca xadiiskii saxiixu muslim ku yaalay baycada wuxuu nebigu kula galay waa calaa qowmi keligaa maahee adiga iyo qoomkaaba waxaan tan uga jeedaa inaynu fahamno hal mas'alo oo ah maxaa dhacay ee saxaabadu dunidan aynu maanta ku nool lahay ee muslimku degan yahay ay diinta u gaadhsiiyeen waxay u gaadhsiiyeen baynu leenahay kow mas-uuliyad bay dareemayeen ka saaran kalimatu tawxiid marka uu ku dhawaaqo ma saxaabadii insiga ahayd oo qura maye xataa waa kuwii jinka ahaa oo jinkuna inuu dacwada xambaaray saynu u goran karnaa rabu samaawaati walardi baa ka warramay ilaahay wuxuu ka warramayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam jinkii u yimi ee islaamay markii ay islaameen baynayana dacwadaasi xambaareen oo ay gaadhsiiyeen maxay qoomamkii ka dambeeyey waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruuhu qaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin falamaa qudiya way u yimaadeen markay u yimaadeen ansituu bay idhahdeen war bal aamus aan dhegaysanna waxa la akhrinaye markay dhegaysteenna adimumant ilaahay wuxuu leeyahay falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin
markuu nabigu dhameeyay calayhi salaatu wasalaam warkii uu sheegay ee qur-aankii uu akhrinayay u dhageysteen waxay ku laabteen tolkood iyagoo digaya oo maxay leh qaaluu yaa qawmana innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa tolkaya waxaanu maqalnay kitaab soo degay kii nabi muuse gadaashi kitaab kaloo ka dambeeyay baanu maqalnay oo ku yeedhaya wixii nabi muuse uu wadayna sheegaya xaqana dadka ku hanuuninaya iyo jidka toosan ilaahay ka yidhahda yaa qawmana ajiibuu daaciya allah waaminuu bih tolkayow rumeeya يعني waxaan leenahay waxa astaan ahayd mujarrad qofku inuu ashahaato mujarrad inuu tawxiidka qiraa inuu dareemayay mas'uuliyad inay ka saarantahay diintan inuu xambaaro quraanku wuxuu ina barayaa mas'uuliyadani waqti inta lag bay saaray wuxuu ina barayaa anbiyadu qaabka ay u xambaareen inay ahayd inay shaqadan ahayd shaqo intay nool yihiin oo dhan wadiifatul umr inay ahayd ولذلك القرآن كوحو كورم يا نبي نوح إني دعوت قومي ليلا ونهارا نبي نوح عليه وحان ددك الدين تووية ري طالكي هبين إيا مالين بوقت يبحى صاهري هبين إيا مالين بوانياري يبولي وحو كلا النبي إساقو هبين إيا مالين بياري أي قرآن كوحو تلمامي إلا بيني هدنا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا قفك بني آدم كاي waxay dadku xalay space ma jiro marka waxa la doonayaa xoogay horay in loo soo kala durko si walaalihiina banaanka taagtaagan ay boos yar baa loo helaa misaadkii baa ciliidin waa marka idinka raalli ah wax yar horay u soo sakada insha Allah qofka bini aadamkii haddii warkiisa la aqbalo nashiid buu noqdaa activity ka sii qaada marka dad u yeedhay wax sheegtay lagu aqbalo waxaad noqonaysaa qof nashiid ah laakiin haddii lagu dhagooleeyo cidiba ku aqbali weydo bini aadamka waxa lagu yaqaanaa inuu inta badan maxay inuu niyad jabo nabi nuux wuxuu leeyahay habeen iyo maalinba waxbaan sheegayay haddana wax sheegaygii wuxuu keensadun in layga sii cararo iyadoo sidaa looga sii cararayay ayaa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa inuu isku dayay usluub kasta oo bini aadam uu adeegsado oo wax loo sheego ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلهي يقول لك كر إيا هوس إيا فقد إيا نوع والبا بني آدم وحلوغو شاقو وأن اسكد يقول لي أنا وحلوغو شاقو مددو انتهي لكي قرآنك وحط المامية 1000 سنة إلا 50 عاما شقاداسي إنو مالين يهبين بودي أسلوب كستو وحلو شاقي إنو وحو شاقي مدد ودي time period ku warkaasi waday waxa weeyaan maxay 950 sanadood uma sida waday bulay inagu imisa inuu muslim ahay imisaad sadad diin ugu yaadhay wali ma dareentay inaad muslim tahay inay xil ku saaraysaa inaad dadka diinta ugu yaadho se waxaad salaaydaa fulan baa magaalada jooga iyo sheekh cilaan wadaada jooga ama kan baa jooga dadkan hore waxa si ma yaqoonin waxay yaqaaneen inay islaamaan ولذلك بقى القرآن كوحي نوت المام يا أنبياء دتك الدين توحي يقول يا ظروف تنالولادة كستاء اللي قلنا لي القرآن كوحي كورب يا النبي محبوسة وحبس كتيرة وهدانا إسقى للظلمية ومظلومة ومحبوسة وأن ودا كيسي تشوجين ومال أن لقى قرنين تشوجا هدانا إن أنا مرنا بهالمامنو إلا بن مسؤوليتين يدك كسارنت إنه دين تجارسيه ودخل معه سجن فتيان راحوا حتى المام يا نبي الله يوسف لبويل با حبس قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا متكود لبدي ويل وحيري وحلا إسكايت سيه ريا يعني وحنكو أركي إسلا أنيجي وخمري عصير يا أما خمري قوش يا أما متشوشين يا أما وضع أيانا ركيبولي كي لبادنا وحلا يدو وحلا إسكايت سيه يدو أن مدح كوسيدو خبز كميس رودي جباتي وحانو مدح كوسيدا وشين بركة العنيان نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين شرح هذا نوغا ورن بيلي نو فصل waxaan ku arkaynaa dadka wanaagsan inaad ka mid tahay laba shay ba u fiirso waxay weydiisanayaan inuu wax u kordhiyo laakiin maxay u weydiisanayaan isagoo maxbuusa oo boqorku soo xidhay oo aan qabiilkan ka dhalan oo waxba la wadaagin oo wadankiisii joogin waxay u weydiisanayaan waxay leeyihiin qof muxsina baad
وقفك مسلم كعدقك لغو يقان قفك مسلم كأهي والسمجري ومحسن وقف وناك كشقايا حتى القرآن كوحنا قرم يا نبي يوسف بقر كي صاحر يا قال كاها مركي أبا هدينا قونتي سينو كعاويي نبي يوسف حبسي كوتشرا وكي بقر الرياضة الرياضي وحفصيرين لواي markii loo yimi mu oranin war naga taga weydin xidhay xabsaaba loo ugu jiraa maxriyadina daba dhigay kuma oranin wuu fasiray oo sheegay bal wuxuu dajiyo uga waramay khito 15 sanadooda oo dhaqaalaha wadanka lagu badbaadinayo gaal iyo muslima dhaqaalaha wadankan way boqorkan xukumo qaabkii loo badbaadin lahaa uga waramay idan muxsin buu ahaa nabi yusuf jaaniska markuu helay muxuu sameeyay qala la yaatikuma ta'amun turzaqan illa nabatukuma bitawili وحليه أولاً وحتركيزين يا وصف عنه ربعين وقدر دعيه إن يمشي كهبونات سؤال شيء لو يدين يماده وحراشين يدين وإيمان ينبغي إلا إياه وأن دين شيء تأويل كيسة ولبا وحليه ذلكما مما علمني ربي أرك كريم وحكم لي أنا وحيابا ربي جاي بري دبتنا أنت نفسرين أيوه حكوا الرمي مهمتي ونولا أو أهدك إنه توحيد كجارسية إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون وحب الآبين تانوا وحب فصيرين كان سكاير الله باهضي أيون ربعين الدعوة دي سليبته وحن كايم يقول يدول أن إلهي يا آخرة ورهم السنين واتبعت ملة آباء إبراهيم وحانا راعي ملة دي دينتي أباياش يا نبي إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب يا هيستين وانا إلهي سبحانه وتعالى وحنقوق الله دايستي إن أننا إلهي عدنا بوشرك يالين كدبوا يقى هدنا السؤال ويديني يوحولي يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ورلبدا المحبوس وبولي من ربي يبدن إلا عابد أبا خير بدن مساء الله كليدا سبحانه وتعالى مركزوا هدنا وحوط المام يوحي عابد الشريرين الباطل ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم kadib wixii uu u noolaa oo ah inuu diinta dadka gaarsiiyay markuu shaqada gutay ayuu wuxuu uga jawaabay su'aashoodii ya saaxibay sajn markaas uu sheegay in midkoodna ama axadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-aakharu fayuslab markaas uu ka jawaabay su'aashii maxaan uga dan leeyahay inaynu dareenno inagoo xor ah ورقالة هيسنا أو حلبة هيسنا أو أودنا إن ندت كدين وشجنه أيوم بأفك الله ينحدى أو إن رميسنين إن المسؤولية ده نكسرانتي أترميسن تون أدوكو والله يدت شنس لا دت بتوكتي أو صانتي مسلم ديك كواد بعتهبات رميسنتي ما هي النبي محمد وحلي اللهم هل بلغت ضدك ولا حوم بتكشرته إله هو أنجارسية مخاطكاه واحد كشرته وضدك آخر الله ورانا يوم حاضتك خلقوا سميسين ما جارسي سنة القرآن إلا الرسالة دي إلهي سبادة كصادرة ضد أردن لوغو تلقلي إنت مدمدوية عرفت لوغو متلقلين بشر أردن لوغو تلقلي أياد رميسان تيوسي ده هدانا ما أودد إنا دليفر قريسيد إنا ديبتيد ما أودد وحاو قرآنكم إنا برا يا أنبياء دو سيدة يودق بجره مثلا إلهي وحكا ورمي يا النبي نفتو كسيب حيثو لكن شقدا إلا من هدانا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي مية شوكتين بالا لي سبحانه وتعالى مركي النبي يعقوب جيرد أيوتمي نبي يعقوب مركي جيرد أيوتمي ماذا فعل حسمي إلهي وحلي سبحانه وتعالى إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي مركو كل هذا إلهي لي عرورتيسي ورانيك قضى الشيء عبدي دونتان يعني وحو هبين إياه توحيد كسيد الله قاطي إيا الدين توحي كي يليان عرورتي سما وهوبين إيا ما ويدين إيا حالها سا أوران دونتان إيا ريراها سا ولقد دونتان إيا محاقبان دونتان إيا وحو ويدين إيا محاد توحيد ككسمين دونتان ونسا وحي إليين وحن عابد دونا إلها كليدا سبحانه وتعالى عندنا كل ما نيمين حين وقنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام isagoo inta dacwo sheegay hadana markay naftu ka sii baxaysay weerihii ugu dambeeyay oo lahaa waxa kamida Allah الصلاة وما ملكت أيمانكم نبي عليه الصلاة والسلام دين يدعو كدر دار مي isagoo ay naftu ka sii baxayso waxa laga yaabaa dadka badinay isleeyiin oo ma adigu ma cilmi badan baad leeyahay oo yaa cilmi kale ku weydiiyay tawxiidka soo ma taqaanid waxa lagu islaamo kalimatu tawxiid
iyo salaad iyo arkaanul islaam iyo arkaanul iimaan qofka waxa loo sheegaya waa kaasi falsafad iyo cilmi kale looma akhrinayo waxa loo akhrinayaa waa inuu islaamo waxa laga yaabaa inaad tiraahdo afkaanan garanaynin quraanku wuxuu inooga waramayaa midaan dadka af garanayno dadka islaamiyay sabab ugu ahaa inay islaamaan qof muslim oo shimbir ka Itaaliyar ma jira quraanku wuxuu ka waramayaa shimbir sababtay in ummad dhame ay islaamto mac boqoradoodii ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu kaga waramayaa shimbir hudhud la yiraahdo culimada Soomaaliyeed waxay oran jireen waa guuguule shimbirka hudhudka la yiraahdo ma guuguulaha nabi Sulaymaan ciidan badan buu watay afaf badanna wuu yaqaanay maalin maalma kamid oo ciidankiisii xaadiriyay buu wuxuu waayay guuguule kamid ahaa ciidankiisii dabeetana wuxuu yiri guuguulahaasi ama cudurdaar buu la iman hadii kale in la cadaabay in la gowraco mid un bay noqon waa la ciqaabaya guuguulihii wuu soo noqdaa wuxuu yiri ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in yaqin nabi Sulaymaan waa ahattu bima lam tuhit bihi waraanad koobin baan soo koobay buu leeyahay aqoon baan hayaa war waxaan ka imi buu yiri Saba meesha la yiraahdo waa Yaman waxaanan ka keenay buu leeyahay naba yaqiin ah war dhab abaan kala imi Saba waa maxay warku wada inni wajadtu imra'atan tamlikuhum waxaan soo helay buu leeyahay duul gabadhay xukunto wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim gabadhaasi wax kasto boqortooyo u baahnayd waa la siiyay kursi weyn oo sariir boqortooyada waa haysatay oo haduu soo arkay dawlad meel ka dhisan maxaa ku jaban waa kan waxa ku jaban wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishams waxaan soo helay buu leeyahay iyada iyo tolkeed oo cadceeda caabuda ilaahi sokadi oo shaytaan uu jidkii alle ka weeciyay oo lunsan baa soo helay buu leeyahay iimaana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin waraqa intaas ku qortay buu dhaqaaq waraqdii baa loo geeyay qisada maxaan uga jeedaa natiija waa maxay qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaymaan lillahi rabbil alamin natiijadu waa maxay hudhud ayaa wuxuu sababay in ay boqortooyadani islaamto ay tiraahdo inni dhalamtu nafsi ilaahay oo naftayda waa dulmiyay wa aslamtu ma'a Sulaymaan lillahi rabbil alamin hudhudku shaqadu qabtay waa maxay wuxuu gartay isaga iyo qoladan inaanay safgaranaynin xataa haduu tawxiidka u sheegi lahaa dan maxaa xal ah waxa xal ah wuxuu dunida ku og yahay cid ay safgaranayaan oo ay safgaranayaan quraanku waa ka tilmaamaya inuu nabi Sulaymaan lahaa ya ayuha naasu ulimna mantiqa at-tayr nabi Sulaymaan khudbadiisa waxa kamid ahayd dada waxa nala baray af shimbiraadka nabi Sulaymaan af shimbiraadku yaqaan hudhudku markaasi wuxuu gartay inuu isagu risaalo xambaari karo ah warkan intuu qaado cid shaqadan qaban karta inuu gaarsiiyo isagana af garanaysa qoladana af garanaysa tawxiidkana sharxi karaysa qof muslimaan shaqada qaban karin ma jira hatta hadaanad af garanaynin dadka daacad noqon kartaa dadka diinta waad gaarsiin kartaa maadaama shimbiriba uu ku guuleystay inuu bulshadan islaamiyo waxaan leenahay ikhwati fil aqeeda waxa laga yaabaa inaad tidhaahdaan meesha culuma joogto oo wadaada jooga oo hebel iyo hebel baa jooga dad diinta sheegaya jooga war waxa mas'uuliyadu kuma dhacdo waayo quraanku wuxuu ka waramayaa magaalo saddex rasuul diiday saddex rasuul magaalo diiday oo hadana niman saddexda rasuul ba ahayn uu diin sheegayo wadrib lahum mathalan ashab alqarya إذ جاءها المرسلون dadka waxaad u sheegtaa baa la leeyahay subhanahu wa ta'ala tusaale wadhigta magaaladii saddexda rasuul ay yimaadeen ee arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azazna bi thalith faqalu inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna ilaahi wuxuu ka waramayaa subhanahu wa ta'ala magaala rasuul loo diray markaasay beenisay markaas mid kale loo diray markaasay beenisay markaas mid saddexaad loo diray hadaad soo gasho magaalo saddex rasuul diiday maxaad sameyn lahayd رسول شريعة من النبي كله صادر منذرين هذا سام مفسرين تقارقبان أما رسول الله هذا حق الرب كاتبين مقالة صدح عالم وكهوا وين يشوقان ولا صدح دبل الديدة أما صدح الرسول إلهي صادر يشوقته وحبل لقد يسوي يهدات شوقته أدوكم حد يلي لهي
halka yaabana istiraahada shaqadii rasuusha laga diiday adiga maxaa ku yaala laakiin ilaahay wuxuu ina barayaa dhaqanka qofka muslimka siduu yahay wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ibn hubayra wasiirkii la oran jiray caalimka haba wuxuu leeyahay qisada yaabkeeda waxa kamida buu yiri ninkan markii alla sifaynayay laguma sifaynin nin cilmi leh ama waxba laguma sheegin waxa lagu sheego qura maxay wajaa rajul inuu yimi xagee ka yimi wajaa min aqsa almadinati rajul ka waxa la tilmaamay muu ahay nin xaadiro meelahan culimada ama rususha lagu diiday joogay magaalada dacalkeedu joogay aqsa almadina buu ka yimi wuxuu kala quraanku tilmaamaya yas'a warku markii uu soo gaadhay in rusushii la diiday ayuu magaalada dacalkeeda ka yimi waliba isagoo ordaya la leeyahay rooraya oo raba shaqada inuu dhaqso u qabto markuu yimina wuxuu sameeyay ya qawm ittabi'u al-mursalin bulay janb ar-rusul buu ka hadlaya wuxuu leeyahay ya qawm ittabi'u al-mursalin wartalkayo rasuulada raaca waayo laba sababood ba ku raaca bulay ittabi'u man la yasalukum ajran raaca midaan ajr idin weydiisanin ajrku waa maxay waa mid aan magac maamuus lacag siyaasad waxba ka doonaynin qofka bini aadamka hadduu dareemo inaad dantiisa ku kacsanayso inta badan wax ma aqbalo waayo waxaanaad sheegayso gadaasheeda wuxuu ka akhrinayaa wax kale oo ku qoran oo ayna danahaaga adigu dee wadato in adigu business kuugu jiro ayuu dareemaya laakiin quraanku markuu rususha ka warramay fi suurati shu'ara nabi kasta sloganiska anbiyadu sideen ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru ba kamida ilahi kaligii la caabudo maxaa kale nabi kasta la laha ku dadka qul la asalukum wax ajra idin ma weydiisanayo ku dhabala laha rususha waxa la leeyahay dawaa rasuulka ilaahay soo diray dadka waxaad u cadaysaan ma asalukum alayhi min ajr xoolo idin kama doonayo ku dhaha idan wuxuu leeyahay ninka kani war marka koowaad waxa raacdaan cid aan dan idin kala hayn inay diinta ilaahay idin gaarsiiso mooyaan marka labaadna maxay ah wahum muhtadun iyagu hanuunsan quraanku wuxuu inooga warramayaa laba rasuul hadaynu kuwii hore xataa culimada tafsiirka qaadano quraanku wuxuu ka warramayaa laba rasuul oo talkood la jooga oo ilaahay gacantooda ku soo badbaadiyay oo hadana la beeniyay oo niman kale ka dhinac hadlayaan oo leeyahay war rasuusha la raaco إلهي قرآن كوحكو تلمامي قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما نبي موسى هي نبي الله هارون غير بنو إسرائيل بالله صادره غير بنو إسرائيل دلي إيو أدون سباي كسو صاره إلهي سبحانه وتعالى بضبو كلا جاحي فرعون يكوح دي بالله هلاقي لكن وهلكو قبل أما جهادكم أول جهاد لفراقون كم بيهايه waxa lagu yiri Soomaa arkaysaan in Ilaahay inta soo halaagay idinka hadaba waxa idin saaran in jihaatantaan oo Baytul Maqdis gashaan oo jawaabirada ku jira ka saartaan udkhulu al-ardh al-muqaddasah allati kataba Allah lakum dhulka alla idin qoray baa la yiri gala waxay yiraahdeen anagu galimayna hadii ay ka baxaan baanu galaynaa markii lagu adkeeyna waxay yiraahdeen adiga iyo rabbiga dagaalama adiga iyo rabbiga nabi Muuse u dagaalama innaha huna qaacidun annagu halkaanu sii fadheenaye fircoon ba ilaahay aada u bariyo gacantaada lagu burburiyay qoladanna adiga iyo rabbiga isku dayaba yiri annagu sii joogeynaa laba rasuul baa la diiday markaas oo wacdi dhan waday markii la diiday ilaahay quraanka wuxuu ku sifeynaya laba nin oo kale aan rasuul ahayn oo waa maxay قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما قال رجلان وحصفه كلا لما سعته مجرد رجلان بلغوا سفيه لكن محل الراعي من الذين يخافون أنعم الله عليهما لمن وكوا الله كعبسنا يكمله وإلهي سبحانه وتعالى كن نعمة استجيس النما يرجع النما يكلاديك أي وحي كوي راهدين ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وراء الباب كوجلا اسكتوا رمضان ماذا حجلا هذا أساس ما يسان اللي نقول كإلهي بايدين قرآن قرآن كهلا يدين كل شيء جاي قرآن كل شيء جاي الأرض التي كتب الله صلاة دبر يلا كلي كدونا وانكو درنا ولا ما يوجدني
haddii ay maxaa wax ka dhiman yahay dadku jeclaan waxa lagu yiri gala qisadoo dhan waxaan uga jeedaa waa laba nin oo laba rasuul oo la beeniyay ka dhinac hadlaya waxaan ku soo koobayaa dariska dhamaantii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam goorma rasuul laga dhigay markiisa rasuul laga dhigay imisu xambaarsana iqra bismi rabbika alladhi khalaq wa maxay wa nabinimadii rasuulnimadana culimadu waxay dhahdaan yaa ayuhal mudathiru qum faandir kac oo dig baa la yidhi kan isduuduubayo qum faandir markii la yidhi cilmi intee leeg baa ku soo degay yani waxaynu odhan karnaa waxoogaagu ru'yada ku arkay iyo labada aayadood ee qur-aan baa la tilmaamay waxaan ku soo koobaya markaa wuxuu yahay qof muslima oo aan diintan sheegi karin oo dad gaadhsiin karin ma jiro laakiin waxa laga rabaa waxaad garanaysaa inaad gaadhsiiso nabigu wuxuu yidhi balliquu cannii wala waaya balliquu maa shi'tum lama odhan balliquu cannii buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam aniga wixii aan keenay dadka iga gaadhsiiya laakiin waxa uu keenay dadka la gaadhsiinaya waa maxay ma kutub akhriba hal aayadna ha noqotee faatixadu haddaba 7 aayadood mid ka mid ah faatixadana ha noqotee dadka gaadhsii baa la yidhi idan waxaan ku soo koobayaa dariska kani dantan kale oo dhami waa hal mas'alo ah war ma dareennaa mas'uuliyadda inay diintan mas'uuliyad inaga saarantay oo inaga saarantay inaynu hiil iyo hooba siino oo inaga saarantay inaynu faafino oo nafteenna iyo gurigeenna iyo qaraabadeenna iyo dadka inoo dhow iyo basharka intiisa kaleba inaynu gaarsiino waxay diintu hadda ku soo gaadhay saxaabadii nabiga iyo taabiciintii baa iska xil saartay oo faafisay imikana waxa muslim oo dhan loo gumaystay u socon weyday inaga isku koobnay oo waxba waynu sheegi weynay waxaynu awoodi kari weynay inaynu basharka aynu la noolay siiba kuwiina kan gaalada dhex degani hadda cudurdaar bay aakhira idiin noqonaysaa gaalka lagu dhex joogi karo haddii aad diinta sheegtaan dacwada waxay ka mid tahay waxyaabaha banneeya in gaalka la dhex joogi karo haddii kale aakhiro joogistiina xataa ina cudurdaar weydaan baan ka baqaya waa mas-uuliyadiinni waa cudurdaarkiinni waa dantiinni waa qaab loo cibaadaysto qaabka ugu fiican waayo qofka diinta soo gala wuxuu camal sameeyo dhan in leeg baa ilaahay adigana kuu qoraya haddaad midhuun islaamka ku darsato midhkaasi wuxuu cibaadaysto oo dhan marka isaga loo qoro adna in leeg baa miisaanka lagugu qoraya mar hadda adigu 10 salaadood ma tukan kartid laakiin haddaad 10 ku darsato maalin kasta 10 baad tukanaysaa haddaad rabto markaa in ajarkaagu bato oo aad aakhira badbaado oo aad nabi maxamed safiir rasmiya ka noqoto ilaahay diintiisa la faafiyo sallallahu ala nabi maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ugu horeyn waxaan jeclahay inaan idin xasuusiyo albaabada ilaahay waa fur qof waliba oo muslim horta ayuu ka daalin inuu ilaahay baryo ilaahay baa ballan qaaday inuu ka aqbalayo bal sheegay inuu ka xishoonayo adoonkiisu inuu gacmaha soo taago alla ka aqbali waayo uu ka aqbalaya idan kalsooni isku beera markanaysa ama dhibta ka cabanaysa in ilaahay dhibta ka qaado xanuunadana ka qaado islaamnimada iyo diintoodana ku sugo innagana islaamnimada iyo diinta in alla ina fahamsiiyo inugu sugo kuwii xambaare ummadda inta kala gaarsiiyana inaga dhigo sallallahu ala nabi muhammad